قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. سدح دبتودا وادب ديشودا وادب وحاكم مده نكاحا مده أنا نخسي وحاويان الطلاق فرنينكا وحلقو عيار ميا مسوح كلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي ولا لها قالقة سيدا ودا دنتهين سيدا سو أركتين ما أنت وحان ربا إنان كهذلنو أنا سيفي عنو عن بارينو ولا لها دمان يوتيوبر رضا أو بنت شيغان بدنا لأنه بنت سيدان أقناي حرام ويان. الله سبحانه وتعالى وحير ألا لعنة الله على الكاذبين. قرآن كان إن بدن أيو الله سبحانه وتعالى كهالله بنت إني آد وحنتهي بل سوحا كسي درن أنغو إني بنت حنتهي أيان وقت وليبا داوانا وفيوس إي وقت سينا ما دام أنا خيرك إي وناك أن سفي عن أداونين. سيدا سو أركتين ولا ليال بريها وحابرها برشد دح سعودي قبر ليداها سمية أو قواويل ليرادو يوتيوبر liibaan liicaato ku magacdeen inay la jilaysay wiil kale jacayl iyo been oo ay leeyihiin ninkii ay kala tageen oo aniga ayaa saaxiib la ah. subxaanallah, taasina waa sharaf meel looga dhacayo. ninka ragga raali kama noqdo cidiisa iyo cirdigiisa in lagu tutunto, balse anaga maanta ma dhaheeno liibaan ayaa arintan suubiyay mise furniinka uu ka dhacay, balse nin rag weeyaan damiirkiisa ayaa markaasi kici lahaa. taasina waxay keeni lahayd caqabad iyo furniin. wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam: thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. saddex dhabtooda waa dhab, dheeshoodana waa dhab, balse maanta waxaa la keenay in lagu ciyaaro furniinka. waxaa muhiimadeena waxaa weeyaan waxaa ka mid الطلاق فرنينكا. بل أن أرقنا واحد هين طيب دايما خليسين برانكي ميا أنا كان مساء وحريلي واي شكرا برانك معهن دحيو سماي اللي بان مكالب تاقين مركز جواب وربو إني كنان أنا عيدي مثلايو سؤال شاس أنا بيجينا أيضا جوابت أفكار كما خلدنتين. نعم وخناعة هذا مش وجودن بي أنا وإيدي جوابي كرا لكن سأني أفكر وحكا في عن آيات إني إيدي سي جوابته. أوكي سؤال شؤوري أو يوم بتوحاوي برانكيان برموس أفجر ما. أوكي سمايا دايما خليسين برانكي ميا أنا كان مساء وحريلي واي شكرا برانك معهن قفنا نبشيسا برانك مكة ديبو وأمي خشين سما واحد برانكي الله مجيه وانول رياليتي قفكا نلوشيس دبتا برانكي مكة ديجي كرو إذا أي ويديسين وحن برانكي ميا مسي معهن برانكي نقول مصافتي مجوبتين وهايستان وصيفي عنو أو مغشا سما سؤال شكل سمايا دائما مخشيد أذيقا يليبان مكالة تكتين ها أما مايا جوابته ده سؤال ده إذا كسار ما جوابتي إن الجواب ده ما إذا كسار جواب رسمي هذا ما نسينا. هاي سمايا أذيقا يليبان مكالة تكتين ها أما مايا أذيقا يليبان مكالة تكتين ها أما مايا جوابته ها sababtana ha i weydiinin mana rabina soo hadal qaado sababtay hooyadaaba isku guursadeen ban maanta loo kala tagay saakil qofka kale uma han geed u baxay alfay mada waana baxaa waa maqshina falan Soomaaliyeed waa maqshin mo okay su'aal kale aan la iibidi atana sababta Soomaaliyeed ay maqshid sababta aad ku kala tagteen adiga iyo liibaan aniga amid ahaan rugmiya ku leeyahay maya amid wax lugama ku lihid adiga anagana ismaana aqoon sheekadana waxay soo jiitamaysa bilooyin afjarkeedina waa la gaaray waa la soo dhaafay adiga wax lugama ku lihid dadkan shacabkan social media views ka raadinaya ama dadkan wax raadinaya horta first of all idinka arsaaqdii ilaahay bidiyay aniga amiidana soo gashay dhima lahan u dhibaato ma waragno arsaaqda waa nagu cuni kartiin wax waad alifin kartiin waa sameyn kartiin laakiin si xaqiiqda in uu asaga wax lagu uusan ku lahayn family yule dad ayaa ka dambeeya qaraabo ayaa ka dambeeyso waxyaabaha qaar oo dusha ka saaraysid ama qof weyn aad oo meel la soo fariisanaysid waxa ma ku faa'iideysid even hada wax meel la soo fariisanaysid wax xaqiiqa soo qaado waa maqshin Soomaa sababta ay ku kala tageen liibaan iyo Sumaya aniga wax lug ku midi. su'aal saddexaad oo idinka dhan zaid ay weydiinayeen kacbad maxaa weydiinaysaa Soomaa marka isbaraneynay Sumaya ma ku qabay liibaan
mise single ahayd mise markaa isbaranayni marwa ahayd ama single ahayd marka adi koog isbaranayni waa su-aasha keliya muhiimsan in aad inaa wada maqshin si fiican aa ogaatiin su-aashan waay ninkii dhigihii suf uu jiro kala bax dhagahay suf wax maqal markaan isbaranayni ma ku qabiliibaan misana single ayaad ahayd maya baagamuunta ah meelaasoo wareegi jiray haa amiid wuxuu dhahay aniga qof iskoris ah ma ihi qof islaam ayaan ahay qof la qabo kuma dhaco balse arrintuu suubiyo waa arrin aad iyo aad bal aynu dhegaysanno su-aalaha ay iswadaarsadeen intaanan u gelin reactionka waana soo dhigi doonaa jawaabta dambe ee inay ahayd prank uu sheegayo walaa leeyahay waalidaa leeyahay alxamdulilah soomaaliya joogaa waxa waaye diinta islaamka kusoo barbaaray intaa kusoo ekaaday ma ahan aniga iska daayay naag la qabo in iyo ninkeeda in kala geey iska daayay xitaa naaga la qabin aniga maku dhacdhaco sababtani waxaa ogaan kara arrinkaasi qof rad maxaa inaga dhexeeya anaga iyo Sumaya okay ay Sumaya adi maxaa xiriir ah oo naga dhexeeya aniga waxaa naga dhexaa xiriir hooyaa ba ka dhexeyn kara exactly waxa hooyada ayaa ba ka soo dhexeeyay ay markana ka dhexeeyay waa maqashan Soomaa haddaa ogaatid adiga haddaadan ogaanin we don't care about oo keliya calaf waay wax walba calaf waay qof calafku wuxuu la mid yahay caleen geed saaran oo kale caleenta subxaan allah sheekadii kabtaasi ayay ku dhammaatay oo waxay qirteen inay ninkii kala tegeen oo asaga iyo ayada wax ka dhexeeyo balse xaqiiqda taas ma ahan ee xaqiiqda waxaa weeyaan inay gabadhi iyo wiilkii ay isqabaan ogo waxa saas loogu ciyaarayo waa nin gogoshiisa cirdigiisa iyo xaaskiisa waxaa weeyaan walaalayaal waxaan oga digayaa dhammaan walaalaha inay iska ilaaliyaan inay ku ciyaaraan cirdigooda misena qof kale sharaftiisa iyo gogoshiisa subxaan allah waxaas camal waa wax aada looga xishoodo baryahan soomaalida waxay baratay brankiga balse meel walba wuu gelayaa subxaan allah mar dhowna waxaa la arki doona ayaana ka darnaan doonaa walaalayaal iska ilaaliya barankiyaha iyo foosha xun iyo waxyaalaha beenta ah barankigan la sheegayana waa beentana allah subxaana wa tacaala wuu xarimay subxaan allah waxaad ku garanaysaa qiyaamaha inay taagan tahay beentii ayaa aada loogu batay allah subxaana wa tacaala hana in dhowro dhammaanteenaba bal aan dhegaysanno wuxuu leeyahay mar kale asagii assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soomaali weyn meel walba adduunka ka joogtaan waa idin wada salaameynaa fogta hore mideeda xigtana waxaan rabnaa in aan arrin muhiim aan ka hadalno aniga iyo my brother Amiid arrintaasna waxay tahay Amiid horta igala hormar hadalka maxaa leedahay horniyo waa aad waxaa laga banaan taqaana dad badan aan meesha warka tagi oo wax yara way iska soo sheegeen laakiin hadda gunaanada sheekada la gaaray waxa waaye misalka inta ku soo afjarnay wax walba branki ahaayeen baashaale ahaayeen waxa loo baahan yahay marka qaar in oo bulshada lala kaftamo had waxa waaye waa lala kaftani misalkii hore si xiisa kan oo dhigna misaladii hore mid ka duwan ay midkaan ka dhigin sababtoo dadkii hore waxa waaye waa soo afjarnay sababtoo laakiin anaga ilaa YouTube ka geeyay waxyaaba abubuuninaysi meeshan ku afjara waxba ma jiro waxa waaye walaashay Sumaya aad u salaama walaalkii Liiban sidoo kale asan aad u salaama wax walba baashaale ahayn marka wuxuu waxa ku dhilaa wariisa ka tagin hadda kadib barnaamij duuma asoo wadi isu wax ka tagin waa in jecel dhamaantiin all guys subxaan allah walaalayaal sidaan aragna sheekada waxay noqotay brankna macnaheeda waxa weeyaan been wuxuu yidhi xabiibka sala allahu calayhi wasalam waxaan idinka digayaa beenta maxaa yeelay beenta waxay dadku ku hanuunisaa fujuurka iyo dembigana dadku wuxuu ku hanuuniyaa naarta qofka kama zuulayo inuu been sheego uu beentana ku dheeraado ilaa agtii allah subxaanahu wa tacaala agtiisa looga qoro kadaab mid beenaale ah subxaan allah walaalayaal halkaas ayay ku dhammaatay aan iska ilaalino beenta iyo waxyaalahan la leeyahay brankiga oo beenta ah salaamu calaykum fadlan haddii aad nagu cusub tahay youtube-ka channelka cabdifataax khayr wade subscribe inoo saar like share sidoo kale haddii aad ka heshay falcelinteeda وحقاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.